halkan oo ah xarunta golaha wakiilada Soomaaliland oo saaka loo fadhiyay arinta kiiska xildhibaan Maxamed Abiib ayaa isaga oo kiiskaasi socdo ka hadalkeeda waxa gacan ka hadal uu ku dhexmaray goobtaasi xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun iyo sidoo oo kale xildhibaan Jamaal oo kamid ah labadaba ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland fadhigii golahaasi wakiilada ee saaka loo fadhiyay ayaa mar kaliya waxa uu isku bedelay jawigii noocani wakiilada Soomaaliland ayaa go'aan cad waxay ka gaareen in xildhibaan Maxamed Abiib aan haba yaraatee laga qaadi karin xasaanada iyagoona cod gacantaaga ku codeeyay in aan Maxamed Abiib xilka laga qaadi karin soo jeedinta xeeladaha ee maamulka xawis xubinta xildhibaan Maxamed Abiib way loo qoraynaa inta oo soo jeedinta xeeladaha guud inta oo maamuuska laga xayuubiyo ama dhowrsanaanta laga xayuubiyo xildhibaan Maxamed Abiib gacantaas taagan inta diidan in laga xayuubiyo dhowrsanaanta xildhibaan Maxamed Yuusuf gacantaas taagan تجي كعن ساعة أنا بقى عمره كعن كذي هذا جمعنا فريسو يا نتيجة صدق xildhibaan ayaa ogolaaday in dhowrsanaanta laga xayuubiyo xildhibaanka 11 waa diiday